إكران إنay dhimato maalin khayr badan waliba sida la sheegay way Soomaaliyeed soonka laga furay ila xanuun badan waa runtii walaasheen qof wanaagsan ay ahayd xaalena insha Allah Ilaahay jannada ha ka waraabiyo inay dhaaday qof walbo waan iska cafiyay Ilaahay dirtiyaan oo cafiyay asuguna hay soo cafiyay walaasheen maalmihii ugu dambeeyay samafal iyo wanaag fara badan ee waday Ilaahayna maaragtay qaatimo wanaagsan oo uga dhigay samafalkaas ee dadka walaalaha dhibaataysan ay u sameeynaysan isteelka xooshay oo maalmihii ugu dambeysay ku guda jirtay haddii alla ku idmahaya xagga dhanka samafalka oo maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan joognaa isbitaal Digfaar waxaa geeriyootay walaasheen marna saaxiibadeen Ikraan xooshay aad iyo aad ugu xunnahay qof walbana wuu socdaa laakiin waxa lagu farxaa oo aad iyo aad u nasiib badan Ikraan inay dhimato maalin khayr badan waliba sida la sheegay way Soomaaliyeed soonka laga furay Ilaahay waxa ugu baryaynaa inuu kitaabkeeda gacanta midig ka siiyo insha Allah waxaan rajaynaynaa caaw inay gurigeeda saxda ay ku hoyato iyadoo bari la taagan yahay Carafo insha Allah Ilaahay su'aalaha u fududeeyo kitaabkeedana gacanta midig ka siiyo qof walba oo anaka naga midna meesha ay Ikraan aad u aadaa qofkii Ilaahay u soo laabanayo qofkii kalaba aday ku jirtaa marka u soo duceeyna walaasheen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halka uu tacsiinaa walaashii Ikraan oo saaka geeriyootay waxa waaye geeri xanuun badan waa runtii walaasheen qof wanaagsan ay ahayd xaalena insha Allah Ilaahay jannada ha ka waraabiyo qabrigeeda su'aalaha Ilaahay u fududeeyo anaga dhan waa buugaysanahay waxa waaye u soo duceeyo dhammaan muslimiinta meel walba joogtaan loo duceeyo walaasheen maanta duco bisana u baahan tahay awooda duceeno Ilaahay ha u naxariisto abaayeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma halkan ugu tacsiinaa walaashay Ikraan oo loo yaqaano isteelka xooshay oo waxa waaye tii rabbi ku imaaday qof walbana waqti uu leeyahay walaasheen maalmihii ugu dambeeyay samafal iyo wanaag fara badan ee waday Ilaahayna maaragtay qaatimo wanaagsan oo uga dhigay samafalkaas ee dadka walaalaha dhibaataysan ay u sameeynaysan waxaan leenahay marka Ilaahay maaragtay qabrigeeda ha u waasiyo martii la jecel yahay Allah ka dhigo kulay adduunyada waa laga wada socdaa qof walbana waa dhimana dhammaan ehelkii asxaabta iyo qaraabadana samir iyo iman Allah ka siiyo raaji'uun waxaa halkan iskugu imaanay walaasheen isteelka xooshay Allah u naxariisto inaan u tacsiino dhammaan ehelada ee maaragtay ay ka baxday iyo dhammaanteenba ehelada kaliya kama bixin dhammaanteenba way naga wada baxday sabir iyo iman Allah naga siiyo kulay maalin jimca ay dhimatay marka fadligeeda Ilaahay waafajiyan leeyahay qabrigeeda Ilaahay waasiyo dambigeeda Allah u dhaafo teeda labaad waxaan rabaa hal dardaaran ay hadda ka hor live ka sheegtay inay dhaaday qof walbo waan iska cafiyay Ilaahay dirtiyaan oo cafiyay asuguna hay soo cafiyo marka waxaan in ka codsanayaa walaalaha muuqaalkan daawo doono qof walbo oo maalin isaf gaareen amba qof walbo oo maartay maalin ere ay ka tabanayso amba asiga wax ka galay inuu iska cafisay ay u cafisay Ilaahay dirtii ugu cafisay adigana ana ugu cafisan rajeenaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan aad iyo aad ugu tacsiyaynaa gabadha walaashayna Ikraan isteelka xooshay oo maalmihii ugu dambeysay ku guda jirtay haddii alla ku idmahaya xagga dhanka samafalka oo maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho gaar ahaan Digfaar isbitaalka weyn waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo ehel iyo qaraabo waalid iyo waalidiin walaal waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo isteelka xooshay kulli qofkii yaqaan looga sheekeeyay qof qalbi iska xaaran haddii alla ku idmahayaho wanaag intuu wanaagsan yahay qof bini'aadam wanaagsan ay heeday Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay abaalka iyo ummadda Soomaaliyeed u gashay kuwa dadka masaakiinta hadan yartay u kaalmaysan Ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo maanta qof walba camalkeeda sugaysa adduunyada arkaysi qof ku waaraya marka waxa ogaataa adduunyada inaan waxba laga qaadin waxa ogaataa Ikraan xooshay oo 3 habeen ka hor aniga soo wacday ay tiri Hussein waayanta waa lagu waayay hadda maanta meedan kor taaganahay u tacsiyayna qof walbana saasay u dhameeyay humidkii waa la wada dhalmiyaa Ilaahay noo sheegay marka Ilaahay waxa uga baryaynaa inuu jannada firdaws Ilaahay ka waraabiyo